السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta meel baad joogtaan kuna soo dhawaada janalka maanta. Magacaygu waa Maxamed Nabil. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadanayaa labadii dhaqaatiir ee ka soo jeeda Faransiiska oo sheegay in daawooyinka xanuunka haatan dunida ku faafay lagu tijaabiyo Afrika. Dabcan sidii lagu tijaabin karana waa in xanuunkaas dad lagu talaalo kadibna daawooyinka laga soo saaray la siiyo si loo arko inay ku caafimaadeen iyo in kale. Qaaradeena Afrikana dad badan oo ka soo jeeda ayaa ka falceliyay hadalka labadaasi dhaqaatiir. sidoo kale waxaa jira xanuun kale oo ay ku talaaleen Faransiiska iyo wadamada kale ee la midka ah qaaradda Afrika. Daawooyinka ay ka soo saareen ay ku tijaabiyeen. Ilaa haddana waxaa laga yaabaa daawooyinka xanuunkaasi inay ku tijaabinayaan qaaradda Afrika maadaama aan weli xal loo helin. Haddaba intaan u gudagelin waxaan doonayaa muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeeyaba inaan ka duwo qaabkii hore aan muuqaalada u diyaarin jiray. Waxaan xoogga saari doonaa waxyaabaha muhiimka ah ee u baahan in laga hadlo oo markaasi taagan iyo mowduucyada kale as dhihi karo bulshada waxa ay ku soo kordhinayaan. Okay. asxaab badan oo ku xiran janalka maanta ayaa waxay weydiiyeen asbuucii la soo dhaafay maxaa muuqaal u soo gelin weysay. Muuqaal waan soo geliyay laakiin YouTube-ka ayaa blogareeyay. Sababtana ma garanayo. Waxaan u maleynayaa inuu muuqaalkaas u xiray. Maxaad uga hadashay? Waxaan filayaa inaad fahantay. Sababtu waxay tahay maxaad uga hadashay xanuunkan adduunyada ka jira. Cilad kale oo aan is dhihi karo waa uu ku blogareeyay ma hayo. Codsi ayaan u diray. Waxaan rajeynayaa inuu YouTube muuqaalkaas soo fasaxo. Okay. Anu imaano marka labadan dhaqaatiir. hadalka ka soo yeeray maahan mid loo qaadan karo oo waxay doonayaan xanuunka dunida dhibaateeyay in daawadiisa lagu tijaabiyo Afrika. Tijaabadaas in la sameeyana waa in la helaa dad xanuunkaani qaba ama lagu talaalaa dad si loo ogaado in daawadu ay shaqeynayso. Runtiina waa mid aad looga xumaado. Dad badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika caanna ah ayaa falcelino kala duwan ka bixiyay. Community-ga janalka maanta ayaan soo dhigay sawir ka hadlaya arrinta. Asxaabta inta badan aad ay uga xumaadeen. Laakiin waxaan arkay kuwa dhahaya Soomaaliya Afrikaan maahan oo waa Carab. arrintuna maba ku saabsana Afrikaan iyo Carab. Asxaabta dhehaysa Carab ayaan nahay. Kaba soo qaadina Carab isku xisaabinay. Cidna ogmaba jirtee. Okay. Adduunyada oo dhan Soomaaliya waxay u aqoonsan yihiin inay Afrikaan tahay, laakiin jaamacadda Carabta ka tirsan tahay bis. Soomaali haddaan nahay, Afrika dhul ayaan wadaagnaa, kalar ayaan wadaagnaa, qaarkoodna waa muslimiin oo walaalo ayaan nahay. Faransiiskana wadamada uu dhibaateeyo waxaa ka mid ah Mali, dad muslimiina ayaana ku nool. oo haddii uu ka dhabeeyo hadalka dhaqaatiirtaas Mali waxa ay ka mid noqonaysaa wadamada ugu horeeya. Afrika inteeda kalena waa suuragal in lagu tijaabiyo oo madaxda Afrika intooda badan wadamada Yurub ayaa lacag siiya. Waxa lacagtaas looga bedeshana macada. Madaxda Soomaaliduna waxay ka mid yihiin kuwa lacagtaas wax ka qaata. Waxa laga yaabaa bedelka lacagtaas dano ay leeyihiin inay kaga fushadaan wadanka. Markaas ay danahooda fushanayaanna ma dhahayaan xanuun daawadiis ayaan ku tijaabinaynaa dadka waxay dhahayaan gargaar ayaan wadnaa. dadka dhibaataysan ee qaxootida ayaan u gargaaraynaa oo waxaan u qaybinaynaa daawo. Inteena badan sidaan aragnana dadka masaakiinta fail ay ugu jiraan si ay u qaataan daawada bilaashka ah mana la oga waxa ku qorsoon daawada. Laga yaabaa inay wax ku faafinayaan ama ay tahay mid cusub oo la tijaabinayo. Marka wax micnaa ma noo soo kordhinayso inaan dhahno Afrikaan ma nihin ee Carab ayaan nahay waa inaan dadaalnaa oo isgarab qabanaa oo aan ka fiirsanaa dadkan cadaanka ah ee wadankeena daawada la dhex ordaya. Midda kale aan u imaano xanuun kale oo ay ku faafiyeen Afrika, Faransiiska iyo kuwa kale ee la midka. Xanuunkaasi ma garanaysaa waa AIDS-ka. Dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in xanuunkaasi ka bilowday Afrika, laakiin xaqiiqdu waa dhinaca kale. Wadamada reer galbeedka ayaa ku faafiyay Afrika si dadka dega Afrika loogu laayo. Waxayna aaminsanayeen in uu yahay dagaal aan la dareemeyn. Hadalkaasi qofka dhahay aniga maahan waxa dhahay mid ka mid ah dadkii faafinayay xanuunkaas. Waana ninkan idin muuqda. Sidoo kale waxa uu sheegay markii ay dadka ku talaalayeen in ay sheeganayeen in ay gargaar fidinayaan. Sidaas ayay dadka ugu dhex faafiyeen. Shakina kuma jiro in daawooyinka xanuunkaasi Afrika lagu tijaabiyo ka hor inta aan la siin dadka cadaanka. Wax inta ka xun inay ku sameeyaanna Afrika way ka suurtowdaa. Allah naga badbaadiyo shartooda. In aan taxadarno oo isku tashanana waa wax aad inoogu muhiim ah. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.